السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan idilkiinba saaxiibayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan halkani waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa ku soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijkeena Simikaadkii Najmaan oo idinka raali geliyay labadii habeen aynu soo dhaafnay taxanaha sheekadaasi oo dib inooga dhacay hawlo jira aawadood caawase waxaan isku dayayaa inaan idiin kordhiyo qaybtii idinka habsaantay oo sheekadu intii ay ahayd aan macno yar ku darno waxay noo joogtay in ninkii saaxiibkeen ahaa ee Samatar oo ku laabtay magaalada Hargeysa waxay iga xasuusinaa sheekada waxa qoray Mustafa Atan oo degan magaalada Hargeysa waa qiso jacayl oo dhaba qaybta dambe ee sheekadana waad ku ogaan doontaan halka ay ku dambayso Najma iyo Samatar maalintii ka sii dambaysay waa iga sii fogaanaysay maalintii dambe waxaan wacay gabadhii aan qaraabada ahayn ee ii soo dirtay simikaadka cabasho ayaan u gudbisay oo talow maxaan ugu cabanaya maxafiiskii cabashooyinka gabadhu bal adba waxaan uga sheekayay sidii aanu gabadha isku ahayn iyo iminka sidii aanu isku nahay waxaan ka dalbaday inay wax ila qabato oo ay gabadha iga maslaxo sidoo kalena gabadha ka soo wareysato waxa isbedelay iyo waxa ku dhacay intaba gabadhan iyo Najma iyaduna waa xididoo way isku fiican yihiin ninkeeda ayay qaraabo dhow yihiin codsigeygii waa ay fulisay gabadhiina waa ay soo maslaxday Najmadeydina iyada oo gabadha ixtiraamaysa ayay soo wacday aad ayaan ugu farxay markii aan yara farxay ee ay xoogaa ila hadashay ayay telefoonkii ugu jartay habaar kadib ayaan telefoonkii ku celiyay waa ay ugu damisay muddo ayaan ku celinayay jawaab haba sheegin bottonka siida ayay caadaysatay ceel badana imika ayaa noloshaydu mugdo hor leh u bidhaamay waa nafisi laha hadii ay marun telefoonka iga qaban lahayd rajadeydii aan naawilayay ayaa god dheer ku dhacday oo matadii ayaan ka go'ay ehelkii asxaabtii iyo qoyskii oo dhan waa iga war heleen warkayga oo ay ogaadeen waxaana la isu wada sheegay inaan gabadh burcad joogta aad u jecelahay sheeka ayaa la iga dhigtay taxana ah ma si jiro qof dhibaatada ay haysato wax igala qabtay qof kastaaba waa uu ila yaabaa arrinkaygana dhalanteed ayay u arkaan banaanka uma baxo sababtoo ah iyada ayaan ka fikiraya galabtaas waxaan aaday suuqa waxaan soo gatay buug ka sheekaynaya qiso jacayl oo la yaab leh jardiinka banaanka ee guriga hortiisa ayaan fadhiistay kadibna buuggii yaraa aad ayaan u akhristay oo waan dhamiyay qisada buuggan ku qornayd ayaa sii holcisay dabkii ka baxayay qalbigayga qolkayga ayaan dib ugu laabtay fikirkii iyo murugadii ayaan halkaygii ka sii watay joodarigaygii wehelkay ahaa ayaan dhinaca saaray heesa qaraami ah oo uu saaran yahay laxan murugo badan xambaarsan ayaan daartay kolka aad murugaysan tahay laxanka ereyada ayaa dhadhan leh muusigu macna ma aha waa kii Frank Ocean yiri kolka aad faraxsan tahay muusiga ayaad ku raaxaysataa balse kolka aad murugaysan tahay laxanka ayaad fahamtaa waxa la gaadhay xilligii aan ku laaban lahaa degmadeydii fasax ayaa iga dhamaaday guul darro ayay hadimada caashiqo iyo baday Najmo waxay ku adkaysatay inay telefoonka markasta igu jarto aniguna wali kama aanan quusan ma jirto wado kale oo ii banaan kaliya waxaan awoodaa inaanan rajo dhigin degmadeydii ayaan ku laabtay anigoo tabcaan ah waxbarashadeydii ayaan sii watay waxaana aan ku jiraa fasalka 10aad ee dugsiga sare ama waxa loo yaqaano form 2ga sanadkani dugsiyeedkan dhamaystay waxa la gaadhay xilligii aan fasaxa weyn u bixi jiray sanadkan ma aanan raadin Hargeysa taas bedelkeedana waxaan aaday Jigjiga sababtoo ah halkaas ayaan waxbarashadeyda ka sii wadan doonaa Jigjiga ayaan u guriga bedeshay muddo kadib ayaan gabadhii raadiyay si walba oo aan telefoonka u heli karayna ayaan isku hawlay akhyaar kala duwan oo burcad joogta ayaan la xiriiray nasiib wanaag markii aan raadinayay ayaan helay telefoonkii ay sidato Hargeysa ayaan aaday mar kale iyo fasax kale inta kadib xiriir ayaanu bilownay sidii joogtada ahayd markii aanu subranaynay aanu xiriir jirnay ayaanu xiriirnay mar labaad sheekadaydu waa ay soo yar kabatay iyaduna si wanaagsan ayaa ila macaamishay jacaylkii ayaa mala ku soo laba kacleeyay laba qalbi oo is ogolaa ayaa isku soo dhawaaday mar kale muddo ayaanu wada xiriir jirnay sidii aanu sheekadaydu bilowgii hore ahayd oo kale ayaanu isku noqonay aad baanu isugu qanacsanayn qalbigayga ayaa ay degtay niyad jabkii iyo dhibaatadii aan soo maray ayaan ka soo kabtay oo waan qalbi doogsaday markani waxay ii sheegtay in hooyadeeda ay joogto dalka Norway sidoo kalena ay iyadu u qalqaalin doonto qorshe dhoof ah Addis Ababa inay bilaha soo socda aadana ay rabto ayay iga warbixisay waxaan u sheegay in qorshahaasi caadi uu yahay oo aan nan iswaaynin isla markaana aanu soo wada xiriiri doono si kasto oo waayuhu adkaado qalbiga waan ka murugoonaya sababtoo ah Najma ayaa iga dhoofaysa Najma dhoofkeedu waxa uu iga dhignaan doonaa falaad qayb kamid ah wadnahayga la igaga dhuftay laakiin iyada ayaan farxadeeda la qaybsanaya sababtoo ah waxay jeceshahay qurbaha niyada ayaan u dhisay maalmo ayaanu sheekadayadii wanaagsaneen ku naaloonay dhago codkeeda u buselay ayaa daxalkii ka maydmay aniga oo ku faraxsan ayay masiibo kale soo kala dhex gashay nolosha marna ma dhamaystirna marka ay wax ku hagaagaanba wax kale ayaa ka xumaada waxaa lumay telefoonkaygii simikaadkii ayaa sidaasi ku waayay lambarkeedii oo aanan markii horeba helistiisa dhibaato u maray ayaan mar kale waayay ma aqaano iyadu inuu ka lumay iyo inay bedeshay iyo inay wax kale dhaceen waxaan se waayay meel allaale iyo meel aan kala xidhiidho iyo si aan ula xidhiidho
hadda simikaarkii najmo iyo telefonkaygiiba waa isla lumeen simikaarka barashadeeda sababta u noqday waa uu ku daayay taasi waxay la micno tahay aniga qayb iga midihi inay markan luntay bila ayaa ka soo wareegtay intii aan bilaa telefoonka ahaa najmo intii aanu kala maqnayn ayay burco ka tagtay aniguse ma aanan ogeyn inay iyadu burco ka tagtay waxaan raadiyey warkeeda oo waan waayay si kastoo aan warkeeda u raadin karayay ayaan u raadiyey laakiin nasiib xumo waan ku guuldaraystay inaan meel uun najma kala xidhiidho bilo rafaada kadib ugu dambeyn gabadh reer burco ahoo amuun la dhaho oo iyada saaxiib ahaan jireen ayaan telefoonkeeda helay gabadhii ayaan la xidhiidhay waxaana ii sheegtay najma inaysan burco muddaba joogin islamarkaana dhimasho iyo nolol xaaladay ku sugan tahay ayna iyadu ogeyn markii aan gabadha warkeedii waayey ayaan ka samray laakiin qalbigayga hal maalin najma kama ay bixin magaaladan aan waxbarashada ka watay ayaan iskaga laabtay intii aan jigjiga ku sugnaa gabdho kale ayaan bartay sheekooyin kale ayaan bilaabay walow aan gabdho la xidhiir kale la wadaagay haddana mar kasta najmo xusuusteeda ayaa qalbigayga ku qornayd iyada xusuusteeda ayaan la noolaa isla xilligaasi najmo waxay joogtay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa oo qorshaha dhoofkeedu uga socday aniguse ma aanan ogeyn haddii aan ogaan lahaa waxa ii fududaan lahayd inaan la xidhiidho maadaama ay jigjiga joogtay duruufuhu waa ay adkaayeen dhaqaale buuran ma aanan haysanin sidaa daraaddeedna raadinta najmo kharash aan ku bixiyo ma heli karaynin jacaylkuse ma yaqaano duruufta marar badan ayaan isweydiiyey ma adaa khaldan mise jacaylka maskax daashay baa igu jawaabta maya ee waqtiga ayaa khaldan jacaylka iyo duruufuhuna waxa ka dhaxeeya saamigal macquula haddii duruufta igu xeeranse aysan jirin dhisme waan la xidhiidhi lahaa oo ma waayin xogteeda oo dhanna waan ogaan lahaa xilliga ay tagaysa Addis Ababana waan ka warhayn lahaa ma ogi in ay weydeen meel ay igala soo xidhiidho iyo in kale waxaan si ogahay in dhinaceeda aanan ka helin wax xidhiidhahoo dambe dib ayaan ka ogaaday qorshihii dhoofkeeda in uu hirgalay sanado dhowr ah kadib waxay ka degtay caasimadda dalka Norway ee Oslo sanad kadib anigu waxaan ka degay caasimadda dalka Sutaga Imaaraadka Carabta ee Dubai oo aan ilaa hadda ku noolahay halkaas ayaan ka shaqaynayay iyaduna halkeedii ayay waxbarasho ka sii wadatay waa dalka Norway magaalada Oslo nasiib wanaag waqtiyo dambe waxaa la gaadhay xilliga ay tiknoolajiyadu heerka sare gaadhay isla markaana dadku sida dhibka yar isku helayeen waxaan isku taxallujiyay inaan Facebook magaceeda ku raadiyo waxa dhacday inaan Facebooka ku darsado gabadh kasta oo magaceeda uu ugu qoran yahay najma waxaan raadiyey oo ku darsaday boqolnaan najmo oo kala duwan najma qaali najma qalanjo najma sagal najma dheeman najma hebla iyo kuwa kaloo lamid ah qof kasta oo najma ugu qoran tahay waxaan ku darsaday waa igu lahaa mid uun bay noqon doontaa najmadaadii ama najmo kasta waa aan salaami jiray isla markaana aan wareysan jiray waxaanan wax danana kama aan lahayn waxaan laabal inay suurta gasho helitaanka najmadaydii qalbi wax jecel ma quustee maalin iyo habeen waxaan la noolaa xusuusta najma saacad kasta niyadeyda kama aysan bixi jirin sanado badan ayaan hawshaasi raadinta ku guda jiray waxaan aaminsanahay hadda waxa ay bartay gabadh kasta oo Facebooka ku soo gashay magac la yiraahdo najma cajiib si aan u raadinayay si lamid ah ayay najmana ii raadinaysay aniguse ma aanan ogeyn 5 sano iyo dheeraad baa ka soo wareegtay maalintii codkeeda iigu dambeysay ilaa iyo haatan war iyo wacaal ma aanan ka helin gabadh aanu sidaas isku raadinayno maalintii aanu isbarnay ilaa iyo maanta ma aanan kulmin hal maalin oo kaliya iyadu nolol kalinimo ayay dareemaysay oo ay ku nooshahay balse xiisahayga ayay sidoo kale la nooshahay anigu se xaalkaygu sidaasi kama duwanayn oo waxaan u baahanahay oo waanu isku boholyownay anigii najmi goor galaba bishii July sanadii 2017 ayaa gabadh aanan noqonin ciwaankaygii igu soo darsatay waan ka aqbalay markaas anigu dan gaar ah oo aan ka lahaa aqbalaadeeda ma aysan jirin balse arrin la yaab leh ayaa dhacday marna ma aanan filanaynin inay tahay najma magaca ugu qoran ciwaankuna waa ay salaantay salaan kadibna waxa ay igu tiri walaal Samatar Ibrahim ma fiican tahay iska waran waxaan ugu jawaabay ha walaal waan fiicanahay waxa igu gaaday su'aal kale oo ahayd walaal cidi ma ka maqan tahay intaasi markii aan isdhaafsanay ayaa dareen galay oo waxaan isweydiiyay gabadha su'aasha caynkaasi ku weydiinaysa ayay noqon kartaa isla markaana qaybta xusuus dhowrka ee maskaxdayda ayaa sawirkii najma ee kaydka ku xardhaana soo saartay xogaa ayaan fikray waxaan ugu jawaabay ha walaal hal qof ayaa iga maqan halka qofna lagama yaabo inaan dib dambe u helo kelmaddaas markii aan ku celiyay ayay igu jawaabtay qofkaas ka maqan maxaa uu yahay waxaan ugu jawaabay qofka iga maqan waxa la ii sheegay inay dhimatay yaa kugu yiri way dhimatay ayaa ila soo baday uu waxaan ugu warceliyay gabadh reer Burca intaasi markii aan isdhaafsanay ayay igu tiri waa yahay walaal afur ayaan sameynaya ee goordhow ayaan kula soo hadlay intaas kadib waa aan fakiray gabadhii cidda ay tahay waxa halkaas iga cadaatay inay najmo tahay sababtoo ah qof aan najmo ahayn inuu i weydiiyo su'aalahaas caynkaas ah ma ay dhici kareen markii aan fakiray kadib waxaan is weydiiyay haddii ay najmo tahay tolow xiriirka ma la sii wadi doontaa sheekadaasi simikaarkii najma labada qof ee jacaylka aadka u qiimaha badan uu dhex maray ee Samatar iyo najmo kuna kala noolaa deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Somaliland gaar ahaan magaalada Burco haatanna ku kala sugan
dalkaasi Norway caasimaddiisa Oslo iyo isu tagga Imaaraadka Carabta magaalada Dubai waxaa qoray Mustafa Atam oo ah qoraa iyo hal abuur degan magaalada Hargeysa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mustafa Xaaji Aadan halka aad kala socoteena waa Mustafa Show qaybta shanaad ayaan ku rajo weynahay inaan kusoo gabagabeeyo si sheekada xiisaheedu uu idin wada dhaafo dhawaan waxaan bilaabi doonaa malabkii baa soo dhacay kulanti dambe waxaan idin leeyahay saaxiibayaal sidaas iyo nabad gelyo